mas-uuliyiinta gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer Salaadin Cuqaal iyo xubno ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer ayaa si rasmi ah u daafuray riig cusub oo gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheekh Aadan Xasan Siciid uu ku soo kordhiyay gobolka Togdheer. Riigaasi oo ku shaqayn doona si tabarucaad ah isla markaasna muddo laga ururinayay qaadhaankiisa dadyowga kala duwan iyo samafalayaasha iyo dadka muxsiniinta ah ee guud ahaan Soomaaliland. gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheekh Aadan Xasan Siciid ayaa si guud ugu duceeyay guud ahaan dadkii ka qayb qaatay inuu riigani soo gaaro magaalada Burco isla markaasna iska ururiyay qaadhaanka lacageed ee lagu soo iibiyay riigan dareelkan ay Iwaada ay soo iibsatay ayaa maanta aynu halkan xafladiisii aynu ku furaynaa. marka barakallahu fiikum sida aad aragtaan riigani waxa weeyaan riigii Ramadaantii aynu lacagtiisa ururinay. ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inuu gacanteena soo galo. halkaasi ma doonayno inuu mar qura istaago, waa inuu marba uu beel u dhaqaaqo weeyaan. taasina waxay ku xidhan tahay jeebkiina ayay ku xidhan tahay, waayo baalku kharash ayuu u baahan yahay inuu dhaqaaqo oo shidaalkiisa iyo qalabkiisa iyo beebkiisa iyo keysinkiisa iyo qalab uu baahan yahay. marka aad iyo aad waxaan idinku boorinayaa in laga qayb qaato inaynu boqolaal ceel oo kale oo riig oo kale aynu qodno, inaynu ma garanaysaa hawshu may dhammaan ee waa bilow weeyaan. barasaabka gobolka Togdheer iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco iyo waliba isku duwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheekh Aadan Xasan Siciid iyo hay'addiisa oo ay sheegeen inay inta badan isku hawsho ka shaqaynta iyo u gargaaridda dadka tabaalaysan. riigan cusub oo loo baahan yahay wasaarad ahaan ciddii dalka wax ku soo kordhinaysa ee dhinaca biyaha wax kaga soo kordhinaysa waanu taageeraynaa. waxaanu rajaynaynaa inuu wax badan ka tari doono baahida biyood ee ka jirta gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee dalkaba. ma aha riigani maanta kii ugu horreeyey ee waxtar uu ku soo kordhiyo gobolka ee runtii muddo dheer imika waxa uu ka shaqaynaya ceelal badan oo hareeraha magaalada iyo gobolka iyo nawaaxigiisaba ah. xilligii aynu ka soo gudubnay ee adkaa ee abaaraha oo uu waxtar weyn sheekhu keenay. marka runtii waxaanu aad iyo aad u soo dhawaynaynaa Sheekh Aadan Xasan. waxa weeyaan hay'adaha ugu firfircoon ee ka howlgala gobolkan ee maxalliga ah. shirkado lacag badan qaata oo kolba meel ku joojiyay bahalay baana bartee kan wuxuu noqon doonaa mid gobolka si gaar ah runtii u sii anfaca. aad waan kuugu mahadnaqaynaa. Salaadiintii ka hadashay munaasabadii lagu daafurayay riigan cusub ayaa sheegay in riigani uu yimi xilli loo baahnaa isla markaasna waxay ugu duceeyeen guud ahaanba dadkii ka qayb qaatay soo iibinta riigan cusub. waana riig weyn, waxaan fili doonaa biyihii aynu gaari weynaba haddaynu barcannahay iyo riigagii odhan jiray biyamaan gaadhin inaynu kaga raysan doonno. taagannahay wuu cusub yahay, dhowaan ayuu keenay. waxa weeyaan waxaa laga yaabaa sidaa uu caaqilkuba hore u sheegay in aad iyo aad muxuu ahaayey looga raysto. weliba wuxuu kaga daran yahay Aadan Xasan. ilaahay waa u sakhiradoo meesha uu ku taago dareelka markiiba balaamarka ilaahay biyaha ka soo booda. waa ugu ducaynaynaa. halka riigan ka dambaysa waxa ka taagan taangi, waa kii wakhtigii abaaraha dadka looga dhaaminayay ee booyadu galaabaxayeen. kanuna waan soo gaadhay oo hay'addu ku guulaysatay inay soo iibiso dadkii muxsiniinta ahaa ee la baxay. waxaanu ugu bushaaraynaynaa in riigii soo gaadhay uuna shaqayn doono, shaqo geli doono. awal waxdee la soo kiraysta baa lagu shaqayn jiray. maanta riigan oo hanti ah oo hay'adda iyo ummaddu ay leedahay ayaa markaa waxa weeyaan oo shaqaynaya. ilaahay dadkii baxsaday subxaanahu wa tacaala khayr ha ugu bedelo. ka qayb qaatay camalkan khayriga ah sidaa salaadiintii hore ay ku tirawday. ilaahayna waa idin ogyahay, annana waa idin ducaynaynaa. ilaahay ha idinka aqbalo. Mustafa Cismaan, magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland, deegaanka Qudhac Dheer ee duleedka degmada Burco.